سمي هسه وهاس ليلة بولي لحن كذا دارت نوق مقشين كلام مقشين تمام ما ضبك سعره نينك بولي عناية بين كتاب نينك بولي عناية بين كتاب فبعاد ميدبا الله كجاري fanaanada Nimcadareen ayaa lagu qabtay hees ay horey u qaaday oo ay sheegtay inay iyadu leedahay isla markaana uu laxankeeda iyo erayadaba uu sameeyay qof ku sugan magaalada Muqdisho. Heestan oo la qaaday muddo dheer ka hor ayaa hadda soo shaacabaxday inaysan lahayn fanaanada Nimcadareen oo waraysi uu ka qaaday Allah u naxariistay wariyihii weynaa ee dhintay Axmed Xasan Cawke oo ku dhintay magaalada Jigjiga. Heestan dhawaan la helay ayaa waxaa sheegtay fanaanad kale oo hore u qaaday 1985 Masaali Media oo dabagal ku sameysay ayaa arintani soo heshay balse intaana u gudagelin hawshaas oo dhan halka aad nagala socotaan waa Masaali Media fadlan subscribe saaro channelka calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad ula socoto barnaamijyadeena una daawato muuqaaladii ugu dambeeyay ee aan baahino una noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena. Haddaba waxaan gudageli doonaa heestaasi ay Nimcadareen horey u qaaday isla markaana dhawaan la helay fanaanadii qaaday oo ay wareysatay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. heesta nin booli cunay oo ay ku luuqayda fanaanada Nimcadareen ayaa horey waxa uu qaaday Marwo Cabdi 1983 heestan oo ay ku soo caanbaxday fanaanada Nimcadareen ayaa hadda waxa la helay inaysan Nimcadareen heestan aysan lahayn sida aad ku daawo doontaan muuqaalka qaybihiisa dambe ama dhexe. Nimcadareen ayaa sheegtay in fanaanada heestan ama fanaanka u sameeyay heestan oo ku sugan yahay magaalada Muqdisho isla markaana ay magac kale u bixisay ay sidoo kalena ka been abuurtay Nimcadareen heestaasi. Wareysigan uu qaaday Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke oo dhintay dhowr sano ka hor. haddaba heestan ayaa waxaa qaada fanaanada lagu magacaabo Marwo Cabdi waxaana la qaaday 1983 sida ay laanta afka Soomaaliga VOA-da ay u xaqiijisay fanaanadaasi. waatan fanaanada oo ka faaloonaysa sida heestaasi loo qaaday iyo cidda sameysay erayadeeda ama laxankeeda intaba. waxaad ku daawo doontaan barnaamijka sidoo kale Nimcadareen oo magaalada Nairobi laga tuura masraxa horaantii sanadyo badan laga soo wareegay iyadoo sidoo kale Nimcadareen la sheegay in hadda qofka ka tuuray masraxa uu ku calool xumoodo sida ay heestaasi ugu ciyaartay iyadoo fanaanada heesta iskale sidoo kale ay sheegtay in Nimcadareen ay heestaasi si qaldan u qaaday erayadeeda iyo laxankana ay sidoo kale ku tumatay. waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka hadda ku soo dhawaada Marwo Cabdi oo heestaasi ka hadlaysa iyo wareysigii ay siisay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo ay ku taabanayso qodobo badan oo quseeya Nimcadareen iyo fadeexada soo wajahday heestan. waa heesta koobaad aad ku leedahay waatay adiga sida gaarka ku soo jiidata ninka booli cunay adan kitaab heesta la yiraahdo haye yaa sameeyay erayada waxay iskale Xasan Xaaji Cabdullaahi Xaaji Xasan laxankana Allah u naxariistay waxaa sameeyay ninka la yiraahdo Axmed Kacayte. goorma la sameeyay heestan ninka booli cunay 83 waa muddo aad u fog 20 sano ka hor laakiin Marwo haddaad ka warhayso iyo haddii kale kulay fanaaniintu iska warhayaane inta badan heestan haddaad carabka ku dhufatay sidaad sheegtayna ahba heestaadi koobaad ee aad ku leedahay heesaha safka koobaad kugu jirta inta badan waxaa dadku aad ugu yaqaanaan mid ka mid ah fanaaniinta da'da yar waayadan dambe fanka ku soo biirtay. aad baan uga xumaay gabadhaasi midhaha hataa heesta aad u baadisay heesta qofku intuu fanaanku qaado midhaheedii wixii toosiyaa moogtahay hataa midhaha way baadisay ninka booli cunay oo been kitaab u qaaday si oo mucjisa weeye oo maxay midhii ay ku tumatay marka aad baan uga xumaay inay maxay midhaha dadleeyahay inay saa u jijiido. heestaasi aad sheegtay ninka booli cunay ma hees waxay ahayd iska qaaci lagu tumay oo cajiradun la saga duumay hees waxay ahayd dadku yaqaanaan oo idaacadaha ka bixi jirtay ama riwaayadba ku jirtay hees qaaci lagu tumay oo maxay qaaci dadku ku dhageysan jiro aad dadku u jecel yihiin cajiraduna aad dadku u jecel yihiin bay kamid ahayd heestaas. marka ma riwaayad baa laga soo dhex saaray mise iskeed baa loo curiyay maya waxay ahayd may hees caadi ah haye bal haddaad qadar noogu dhufato ninka booli cunaya been kitaab bacaada midig baan laha ku jaray ninka booli cunaya been kitaab bacaada midig baan laha ku jaray inuu baaba yahay u baxar ku jira waa mid aanu bixin inuu baaba yahay u baxar ku jira waa mid aanu bixin
wasuuliisu bogay balse waxaa ka daran beera caashaq degay wasuuliisu bogay balse waxaa ka daran beera caashaq degay on baahidu u bukooda helin on baahidu u bukooda helin nafta bahantaye saadaasha been ku baxnaamise nafta bahantaye saadaasha been ku baxnaamise bulshadana ku tiri waataan bogsaday waataan bogsaday nimco dareen oo sheegtay in heestani uu u sameeyey abwaan ku sugan magaalada muqdisho ayaa hadda waxay noqotay heestani mid aad iyo aad wejigabax ugu noqotay fanaanada oo heestani xaday islamarkaana been abuur ka samaysay cidda u samaystay heesta eryadeeda iyo laxanka. sidoo kale fanaanada iskale heestan Marwa Cabdi ayaa la hadashay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da sida aad ku dhageysateen barnaamijka qaybihiisa hore, iyadoo sheegtay in nimco dareen heestani ay ku ciyaartay laxankeeda iyo codka, sidoo kalena ereyada ay sabaqaar haynin sida ay sheegtay fanaanada heestan originaalkeeda iskale ee la qaaday 1983. haddaba waxaan idin maqashay doonaa nimco dareen ama aad daawo doontaan muuqaal nada lagu magacaabo nimco dareen oo masraxa laga tuuraya iyadoo ku sugan magaalada Nairobi, isla markaana la sheegay qofka ka tuuraya masraxa inuu ku calool xumooday sida ay heesta u qaadayso. bal haddana la daawo muuqaalkan in yar sida nimco dareen looga tuuray masraxa iyadoo heestan qaadaysa. waxaad ku daawo doontaan barnaamijka muuqaalo kale oo laga duubay nimco dareen ay ku sheeganaysa heestan iyo heesa kaloo badanba. heesaha ugu badan ee dadku adee shalmadaha garbasaarta tuureen alla dareena heesta holan horta waxay aad uga heleen heesta booli. maxaa la yidhaha booli miyaa sameeyey heestaas waa hees la yidhahdo booli. laxankeeda haddaad rabtana waa ku maqashiin karaa. maqashiin maadaba ka saaro ninka booli cunaye been kitaab ninka booli cunaye been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray ninka booli cunaye been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray inuu booha yahay midhaha iyo ereyadaba waxaa iskale wiil Cabdillaah la yidhaahdo. waxdan degan may wadankii Soomaaliya. ha good waa heestaa booli tii kalena maxay ahayd qandho qandhadii. ha marka waxaad haysataa wax cusub dareen qandho booli what else maxaa kale ku talagal inaad timaad telefoon waxay ma taree ninka booli cunaye been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray ninka booli cunaye been kitaab babacaada midig baa laha ku jaray inuu baadan yahay u baxar ku jiro waa midaanu bixin inuu baadan yahay u baxar ku jiro waa midaanu bixin wasuuliisu bogay balse waxaa ka daran beera caashaq degay. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan ku eegaynay heesta booli iyo oo ay xaday fanaanada lagu magacaabo nimco dareen. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka
nagu soo biir subscribe-na saaro calaamada gambaleelkana ha iska hilmaamin hoos nagu reeb wixii fariimo ah iyo wixii aragtidaada ah halkani waa Masaal Media ood ka heshaan wararkii ugu dambeeyay